sida ay sheegayaan wararka laga helayo magaalada Muqdisho iyo Somaliland iyo waliba wadanka Djibouti waxaa soconaya shirar la doonayo in la iskugu keeno madaxda ugu sarreysa dawladda federaalka ee Soomaaliya uu hogaaminayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda ugu sarreysa dhinaca Somaliland uu hogaami doono madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi. dadaaladan ayaa waxaa codsaday sida wararku ay sheegayaan madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dalbaday in inta uu soo dhamaan waqtiga uu xilka hayo inuu doonayo inuu isku keeno gobolada waqooyi iyo waliba koonfurta Soomaaliya. dadaalka uu bixinaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa haddii uu ku guuleysto dad badan waxa ay rumaysan yihiin inuu taariikhda baal dahaba ka gali doono. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wararku waxa ay sheegayaan inuu qorsheeyay in ay isku yimaadaan Somaliland iyo waliba dawladda federaalka ee Soomaaliya si ka duwan sidii horay shirarkooda uga dhici jireen uu noqdo shirka soo socda. madaxweynaha iyo waliba madaxda sare ee dhinaca dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa lagu wadaa in dhawaan ay gaaraan wadanka Djibouti waxaana ka qayb gali doona shirkaasi oo dhinaca Somaliland ka imaan doona sida wararku ay sheegayaan. madaxda ugu sarreysa dhinaca Somaliland uu ka mid yahay madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, xisbiyada siyaasadda madaxda hogaamisa, gudoomiyaasha labada gole ee Somaliland dhinaca dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaa ka imaan doona sida xogtu ay sheegayso madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka gudoomiyaha baarlamaanka, gudoomiyaha aqalka sare iyo mas'uuliyiin kale. waxaana wararku inta ay ku darayaan in arrintan ay sidoo kale gacan weyn ka geysanayaan wadamada Djibouti, dawladda wadanka Ethiopia iyo waliba dawladda Mareykanka. sida xogtu ay sheegayso madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dalbaday ka hor inta uu soo dhamaan waqtiga uu xilka haynayo in guud ahaan dadka Soomaaliyeed la isku keeno gaar ahaan Somaliland iyo waliba koonfurta Soomaaliya oo hadda ay ka dhisan tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya. waxa uu dalbaday in uu doonayo in midnimada Soomaaliya ay tahay mid aan laga gorgortami karin, sidaa daraadeedna uu qorsheeyay in wax kasta oo awoodiisa oo ay isku keeni karo Somaliland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya xilligan uu diyaar la yahay. waxyaabaha soconaya ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu qorsheeyay sida wararku ay sheegayaan ayaa waxaa ka mid in koonfurta Soomaaliya iyo waliba waqooyiga loo qaybsado awoodda isla markaana madaxtinimada dalka la siiyo dhinaca gobolada waqooyi ee hadda Somaliland loo yaqaano. waxaana qorshahaasi uu doonayaa in haddii uu ku imaanayo in uu xilka iskaga daga xitaa uu diyaar u yahay in midnimada Soomaaliya oo la helo ay uga qaalisan tahay in uu kursiga madaxtinimada ku sii fadhiyo. waxaana qorshahaasi la doonayaa in lagu qanciyo madaxda Somaliland oo horay u sheegay in guud ahaan Soomaaliya intooda kale ay iskaga go'een. qorshahan haddii uu ku guuleysto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la rumaysan yahay in taariikhda Soomaaliya uu bahal dahaba ka gali doono maadaama uu noqonayo mas'uulkii ugu horreeyay ee isku keena guud ahaan Soomaalidii ku kala tagtay colaadda. qorshahan socda ayaa waxaa sidoo kale la rumaysan yahay in gacan weyn ay ka geysanayaan dawladaha Mareykanka iyo waliba dawladda wadanka Ethiopia, waxaana martingelintiisa iyo ka shaqayntiisa sidoo kale qaybta ugu weyn ka qaadanaya dhinaca wadanka Djibouti oo la rumaysan yahay in dadaaladii ay horay ugu soo bixisay sidii lagu heli lahaa midnimada Soomaaliya hadda ay u noqon karto sidoo kale mid u miro dhashay. shirka ka dhacaya wadanka Djibouti ayaa noqonaya kii ugu weynaa ee taariikhda inta la og yahay ay si rasmi ah isku soo hor fariistaan Somaliland iyo waliba dawladda federaalka ee Soomaaliya. waxaana qorshahan haddii uu ku guuleysto madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay dib u soo celi kartaa midnimadii Soomaaliya iyo awooddii xilli lagu yaqiinay. waxaana arrintan sidoo kale la rumaysan yahay in dad badan oo ku nool gudaha Somaliland ay ka dhex abuuri karto arrimo dhinaca siyaasadda oo mushkilada laakiin waxaa la rumaysan yahay in dadka Somaliland guud ahaan aysan diidanayn midnimada Soomaaliya balse cabsi weyn ay ka qabaan in ay dhacaan wixii horay u dhacay xilligii dawladdii Maxamed Siyaad Barre. waxaana taasi beddelkeeda shacabka Somaliland la doonayaa hadda in lagu qanciyo oo madaxdoodu ay ku qanciyaan in midnimada Soomaaliya si loo helo dhinaca Somaliland ay qaataan madaxtinimada halka awoodda labaadna la sii doono koonfurta Soomaaliya. ugu dambeynna shirkan ay iskugu imaanayaan Somaliland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxaa lagu wadaa in inta lagu guda jiro bishan uu ka dhaco wadanka Djibouti. Maxamed Cabdi Salaad, London.